السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada walaalayaal meel kastoo caalamka joogtaan oo walaalkeen Diiri FX waxaan rabnaa inaan falanqeyno kandal kamida kandaladii Doji Family sidaan hore kugu sheegaba in aan taxana ka dhigno kandalkan saa u jeedaan waa kandal u samaysan sida istilaabti magaciisa waa Long Legs Doji oo bullish ah wuxuu leeyahay dhex aad u dhuuban oo way dhuuban dhaxdiisa u jeedaan labada tarafna way u gaabanta sa u jeedaan marka kandalkan waa kandalka sheega signalka iyo markii lacagtu ay kala wareeg sameynayso nidaamkan wuxuu muujinayaa go'aan la'aanta iibsadayaasha suuqa iibsasho markaan ku leeyahay suuqa marna buy ayaad u galaysaa marna sell ayaad u galaysaa marka marna aad iska iibinaya marna waa soo iibsanaysaa marka go'aankii aad qaada lahayd ayuu ku siinayaa kandalkan go'aankii aad suuqa ka qaada lahayd maadaama suuqa uu suuq kor u socday kandalkan uu kandal hadda uu yahay kandal sell ah oo lacagta kala wareeji kara isla tagno qaababka kandalkan u dhaco suuqan kor ayuu u socday buy ayuu ahay kandal saddexaad ayaa dhashay kandal afaraad ayaa dhashay suuqan wuxuu gaaray meeshii ugu sareysay halkii ugu hooseysana waa ka meeshii ugu sareysay suuqan markuu gaaray wuxuu dhamaystay socodkii kore oo uu ku socday iyo suuqan dhamaystay oo baydaha haddaba maxaa dhashay waxaa dhashay kandalkii horay aan idiin soo tusay oo istilaabka ahay ayaa dhashay oo si istilaabka u samaysanaay kandalkan guduudan ayaa dhashay kandalka guduudan ka bacdi markuu dhashay suuqii wuxuu kaaga baahan yahay inaad go'aan qaadato maadaama markii hore aad haysatay buy dheer aad haysatay amase suuqa aad fiireynaysa dhan oo u laabto oo in uu suuqaanu sii socod doono iyo inuu noqon doono meel kale oo aad inuu corruption gali oo doono aad ku wareersaneed maadaama kandalkan uu dhashay waxa laga rabaa inaad position qaadato oo kandal uu ku noqdo kandal ku bixiyay signal kandalkan low price ugu hooseeyay halkan way high price ugu hooseeyana halkaas way oo uu gaaray meeshii ugu oo ka xirmay iyo meeshuu ka furmana waa halkan uu ka furmay halkanuna ku xirmo maadaama intaas ah haysato kandalkii inaad position qaadata laga rabaa oo suuqan aad qaabkii oo maadaama kandalkan oo kandal signal bixiya uu yahay lacagtuna uu kala wareejinayo okay already lacagtan way kala wareegtay saan ayuu u dhacay kandalkan signal ayuu bixiyaa lacagtina saan ay ku kala wareegtay kandalkii labada dhashay kan saddexaadna waa dhashay class sidaan ayaa kandalkan u dhaca magaciisa hore aan kugu soo sheegay waa Long Legs Doji saas way magaciisu Long Legs Doji waa maxay kandalkan wuxuu bixiyaa signal cajiib ah waa hadii aad tahay qof ku shaqeysta xirfadda forex amase inuu barta raba kandalada wuxuu kamid yahay Doji Family kandalada Doji Family shan xabo ayaan hadda soo qaadanay oo aan rabnaa inaan shantooda isku xijino oon soo koobno laakiin kandalada signalka bixiya way badan yihiin oo lacagaha meelaha kala wareega ka dhaca sida meeshaan oo kale hadda suuqaanu marka halkaan idin tusoo kale suuqaanu kor ka yimid halkaan corruption uu ka sameeyay corruption kale oo yar uu sii galay halkaan marka fiiriyo waa large corruption iyo small corruption ka galay ka bacdi suuqan waxaan rajaynayaa halkaan inuu ka dhaco sidaas oo kale inuu halkaan ka sameeynaa sida suuqan uu sameeyo kale oo sameeynaa marka
qaabtationkaas ayaan kugu soo sawira sidii annagoo usoo gudbinayna qaababka ugu sahlan oo qofka bini'aadanka uu ku bara karo ama se luuqadii soomaaliga aheed oo aad ku bara kartay waxaan kaa rajaynaynaa inaad la socoto telegramkanaga Diiriye Forex iyo YouTube-kanaga Diiriye Forex Facebook-kanaga ama bega meeshaan ku leenahay Diiriye Forex all waa one name intaas ayaan inkaga tegayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ha iloobin inaad la wadaagto saaxiibka aad jeceshahay.